kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal haantiin meel walba joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqida ciyaaraha waanigo Maxamed Abu Karbaari waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqida ciyaaraha fadlan hadaad ku cusub tahay page-ka inoo follow garay siina share garay laagtay comment-gana ka ilaawin si uu gaaro asxaab fara badan fadlan u share garay page-kaagana ku share garay mahadsanid أنا كم بالله قطبات وقدر كررنا برامج كنا مانتايا وحكم إذا كواحدة ستي أو بورك إسكجفتي أو أيضا لسوريكتي أفرعية يهن أو أن إن بعاد هاي أفرت عيارتي كواحدة مانشستر سيتي أي لسوريكتي أي وحاي كليهين رايان جيركي أو أي لايون كلاسوريكتي رايان أينتي نوري أو أصنع وولفز أي كلاسوريكتي ماركوس بيتين أو أي تشيلسي كلاسوريكتي تيجاني أو أي سي ميلان أي كلاسوريكتي هذا دقالكا أو بيب جوارديولا كجرو حلقان أيا وحي كم معناتها هاي سنة كسو صعدة لبكون لباتين لحريال كفرميو إنه مركزي وترتميو دونيو إنه كوكوليستو ما دام سنة كان حال كيسو آدي آد الحما هذا sidoo kale into ciyaartoydan ayaa laga yaabaa in wax fara badan ay ka bedelaan kooxda hadii ay suurtagal u noqoto ciyaaryahanka la keenayo kooxda inuu la qabsado sida ugu dhaqsiyaha badan hadii ciyaartoyda si dhab ah ay la qabsadaan kooxda tacticada macallin Pep Guardiola ku ciyaarayo waxa laga yaabaa in wax fara badan ay iska bedelaan kooxda oo ay markaasi weerarkeeda iyo qadka dhaxaba inta badan oo noqdo kooxda Manchester City midaan inaba caadi ahayn sidii hore loo yaqaanay City waxa ay ahayd kooxda kaliya dunida in badan ka yaabsatay oo xaalkeedu yahay xaalal sahada kooxdii korimaadana ay markaasi ka cabaadaysay oo ka qeylinaysay hadaba kooxda ayaa ahayd heesashada positionkeeda banooniga boqolkiiba 70 in ka badan ay ahayd inta badanba sanadooyinkii la soo dhaafay walow sanadka hadda ugu dambeysay xaalkeedu aad u xumaa laakiinse wali waa ay haysatay banooniga kubadda cagta xilligaas garoonka markii la soo galo sidoo kale ciyaaryahan Leroy Sané oo ka ciyaara dalkaasi Germany ee kooxda Bayern Munich ayaa waxa markaasi uu ku wareegaya sida ugu dhaqsiyaha badan oo labada kooxood ay isku afgarteen kooxda Galatasaray ee dalkaasi Turkiga iyo waliba Bayern Munich in ciyaaryahankan uu ku biiro kooxdaasi sanada 2028 heshiis ah ayuu saxiixay waxa uu inta badan markaasi rajeynaya ciyaaryahankan inuu markaasi la qabsado xaaladda dalkaasi Turkiga ee kooxda Galatasaray ay ka dhisan tahay hadaba heshiiska oo qalinka ku duugaya ayaa waxay tahay 2028 ayuu markaasi ku duugaya waxaana dhawaan la filayaa inuu tago dalkaasi Turkiga si uu u dhameystiro heshiiska iyo waliba tijaabada caafimaadkana uu maro sidoo kale kooxda Arsenal ayaa iyadna waxa markaasi heshiis wax ku ool la gaartay kooxda RB Leipzig ee dalkaasi Germany ka dhisan hadaba heshiiska labada koox Arsenal iyo RB Leipzig ayaa waxa uu yahay mid u muuqda inuu markaasi natiijo wax ku ool ah ku soo dhamaado ciyaaryahanka iyo kooxda waxay markaasi ka wada munaaqashoonayaan sidii markaa ciyaaryahankan oo Arsenal ugu soo biiri lahaa oo wada xajoodka labada kooxood ba markaasna ay noqon lahayd mid ay labadoodaba ku wada qanacsan yihiin hadaba ciyaaryahankan Benjamin Sesko iyo waliba Arsenal ayaa in badan ku dareenaysay oo markaasi kaga soo leexatay Gyökeres oo RB Leipzig u dheelo kooxda Sport Lisbon ee dalkaasi Portugal so Arsenal ayaa markaa sida daraadeed waxay markaa ka leexatay inay la soo wareegto ciyaaryahanka Gyökeres oo directorka kooxda in weyn la dhacsanaa sidoo kale balse waxa uu sheegay Mikel Arteta in ciyaaryahankan uu ku dareynayay muddo 3 sano la soo dhaafay oo rajeynayay inuu ku soo biiro Gyökeres ayaa inta badan tiimamka waaweyn waxay kaga cararayaan lacagta mushaarka oo qaadanayo oo ah 300 iyo ka badan oo 300 kun iyo ka badan taana waxay markaa sababaysaa in kooxaha waaweyn ay kaga cararaan ciyaaryahanka maadaama uu intaas oo qaadanayo da'diisuna 28 sano ay tahay 4 sano ama 5 sano oo kaliya ayaa laga yaabaa inuu sii ciyaari karo kooxda sidoo kale kooxda markaa waxa uu Arteta sheegay inuu doonayo ciyaaryahankan da'da yarka ah ee 23 jirka ah in kooxda in badan la qabsado oo in badan u sii dheelo mustaqbal ku yeesho waa sidoo kale kooxda Liverpool ayaa waxay la wareegtay Wirtz oo asiguna 150 milyan oo euro ay kula wareegtay ciyaaryahanka ugu qaalisanaa abid ee kooxda Liverpool ay la wareegtay ayuu noqon doonaa taariikhda dalkaasi Ingiriiska ama ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee Premier League yimaado ayuu noqon doonaa daawadayaal hadii aad inala soo gaarteen ilaa dhamaadka barnaamijkeena fadlan inoo follow garay page-ka hadii aad ku cusub tahay hadii aad ku cusbeenna fadlan inoo sii share garay oo comment-iga ilaagtana hanaga ilaabin waa mahadsantiin waa saaxiibkiin Maxamed Abu Karbaari oo idin leh sida iyo nabad gelyo